marxuumka dhintay ilaahay naxariista ka waraabiyo cabdi aadan cad ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo sida caadiga waxaan markaas inka samayn doonaa inaan ku furno aayadaha qur-aanka kariimka oo noogu furi doona axmed kadib waxaa soo istaagi doona safiirka kadibna way sii socon doona axmed ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضل تحسينين ويه waxaan halkan u joognaa maanta si aan walaalkeen inaga midka ahaa cabdi aadan cadib oo ku magac dheer allah raxma dimacaane oo qayb inaga ahaa halkan inaga deganaa inaanu halkan xasuus ama baroordiiq ku samayno ayaa masuuna midruntii ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo cabdi wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan oo saaxiib nimadana ku wanaagsan in muddo ayuu naga maqnaa wadankii ku maqnaa halkaasana ayay ku haleeshay runtii waqtigiisi ku yimid sidaan wada ognahayba dhibashadu dee waa xaq oo waa la kala horeynaya un laakiin dee nin kasta maalintiisu dhimanaya sida qur-aanka laynagu sheegay qof kasta wuxuu dhadhamin doonaa dhibasho marka taasi waa taa waxaan halkan kusoo dhaweynayaa cabdillaahi salibaan oo isaguna in yar ka oran doona martuunka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan joognaa horta marxalad aynu xasuusanayno walaalkeen shalay naga mid ahaa cabdi aadan cadib oo inala joogay oo nin aada inoogu qiimo badan ahaa maantana inaga tegay dhammaanteenna waynu wada soconaayo waxay inoogu filan cibro inaynu ogaano maalin kastaba waxaynu xeradaa neefku ka baxayo oo inuu ilaahay u noqonaa tiin iyo taydaba waan kula dardaarmaya cabdi waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo nin wanaagsan buu ahaa ereyga waxaa la dhahaa lisaanu insaan qalam raxmaan dadka carabkiisu waa qalinka ilaahay baa la dhahaa ilaahay horta uga soo qaado cabdi macaankii ilaahay wuu u sameeyey wuxuu ahaa nin aada oo markhaati ka kacaynaa nin aada iyo aada iyo aada iyo aada u dabeecad wanaagsan waana la isugu wada markhaati furaya dabeecadaha wanaagsanina qofka jannaday geeyaan oo qofka ilaahay jannada camal laguma tago laakiinse naxariista ilaahay baa loogu tagaa hibooyinka ilaahay bixiye ka mid cabdi anagu waxaan wada joognay inta barkaan hargeysaan ugu tegay cabdi halkan runta markaynu taariikhda dib ugu noqono wuxuu ahaa nimankii dhalinyartaa ugu soo horreeyey wax badan oo ay ka qabteenna way jireen xogaal sidaan ugu ahaa xitaa ururada ay markii dambe ku shaqeeyeen xawaaladaheenu raggii sameeyey buu cabdi ka mid ahaa ilaahay naxariista siiye cabdi dadaal badan buu ka sameeyey halkan iminkana wuxuu tegay dalkii uu goostay inuu dalkii wuxuu intuu qaban karayo inuu qabto runtiina shaqo aada u badan buu ka qabtay waan u tegay waan waraystay isaga iyo ibraahim iyo raggii ula shaqeynayay waan arkay shaqooyin badan buu ka qabtay dalkii iyo dadkii uu soo bartay kafta badan oo macaani waanu soo dhex maray ilaahay naxariista jannaha siiye dee adeegna laguma waaro silsilacna looga dhifo waxaan ka imin nin geeri ka muuqatay maahayn xooggiisa wadayaabaysay oo markuu ugu xoog weynaa hadduu saa kuu qabto kutuuro ilaahun baa ogaa laakiinse haddana daqiiqaday qaadanaysaa nafta oo xoog laguma joogi karo laakiinse waxaan qabaa cabdi ilaahay khaatimadina wuu waafajiyey oo dalkii iyo dadkii inuu magac ka tagan wuu qabtay jaaniska wuu helay halkana innagaa markhaati ka ah oo qof kastoo ay bini-aadmay kulmaan nina ayaad ka sheegan mara cabdi waxaan mar labaad ka taxsiideynayaa dhammaan shacbiga somaliland
xukuumadda hay-aduhu la shaqaynayay iyo colkii ay wada shaqaynayeen. waxaan si gaara uga tacsiidinayaa xaasaskiisii, caruurtiisii, saaxiibadii iyo ehelkii, walaashii khadra. aad iyo aad baan dhammaanba uga tacsiidinayaa. waxaan iyana si gaara uga tacsiidinayaa mujtamaceena reer Norway ee u ka tirsanaa ee u ka baxay. ilaahayna waxaan mar labaad uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo. ilaahayna jannadii isagana dembigiisa ha dhaafo, inagana dembigeenna ha dhaafo. isaga iyo intii asxaabteena ahayd ee halkan ku geeriyootay inaga baxday iyo ehelka kale iyo aqaaribka kale iyo muuminiinta iyo mu'minaadka, ilaahay dembigooda ha dhaafo, inagana haynoo naxariisto. ilaahay sabriye waxay naga siiyo, isagana xasanaadku sameeyey ilaahay ha uga dhigo mid uu ku abaalmariyo. asalaamu calaykum. waxaa kusoo dhawaan filaya guddoomiyaha ee guurtida Mr. Tahar Maxamed oo fadal adaabiga weynaadeen hore saaxiib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت geeri waynu wada joognaayo maalintii aynu jirnaaba waxaynu tallaabo sii qaadeen qabriga. sanadkii aynu jirnaa way ka sii badan tahado waxaynu isdulkii usii dhawaanayn qabriga. maanta waxaa inoogu dambeeyey geerida cabdi aadan cadib aynu maanta u fadhiino taxsiidiisa. ilaahay waxaynu ka baryaynaa naxariisina ilaahay inuu ka waraabiyo, innagana inooga daba naxariisto. muslimiinta wixii dhintay ama halkan ha ku dhinteen ama meel kastay ku dhinteenba ilaahay iyagana inuu naxariisto inuu ka waraabiyo. kulley waynu ku kala dambaynaynaayo intayna halkay joogtaba waktigay noqon alla garan ma berrito masaad ma bisha sanadka dambe kulley qaarkeenun baa maqanaysa dee waynu ku xignaa waynu ku kala horeynaa. cabdi sifihi uu ka bixiyey cabdillahi islaamide ayuu runtii u koobay. dhalinyaradii ugu firfircoonayd ee u soo horeysay dalka ayuu ka mid ah. wuxuu markii dambe tegay magaalada Tromso. anigu 2 jeer baan ugu tegay waqtigii SNMtii oon kormeer ku tegay Tromso. isagii ninka la yidhaaho jaamaca guud waxay ahaayeen labada nin ee halkaa runtii ummaddii deganeed u adeegay ee wuxuu qabanayay bay ahaayeen. dhalinyaradii ugu firfircoonayd ee ummadda wuxuu qabanaysay halgankii marka laga reebo haddana samafal ahaan dalka wixii baahiya